saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub oo aan ku daahfurayno barteena YouTube. Barteena YouTube waxaan ku baran doonaa oo aan idinku bari doonaa cilmiga Forex min bilow ilaa iyo dhammaad inta aan ka aqaan. Sababta ay u timid fikradan in aan bartan daahfuro dhalinyaro badan ayaa igu xiran oo aan wax baro. Mid walibana wuxuu u baahan yahay markii uu ku soo biirayo groupka in qaybtii asaasiyaadka iyo waqti badan in aan geliyo. Sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan muuqaalada duubo kadibna aan ugu shubo bartan YouTube si qof waliba casharada asaasiyaadka iyo qaybtii dhaxaba ay halkan uga daalacdaan. Intaa kadib waxaa muuqaalkeena aan ku bilaabaynaa marka uu qofka doonayo in uu ku soo biiro ka ganacsiga online-ka Forex exchange in uu concept guud ka qaato waxa uu yahay suuqan iyo sida uu u shaqeeyo. Marka maadaama aan ku hadalno luuqadeena Soomaaliga waan soo turjumay oo waxaan ku baran doonaa luuqadeena luuqadaha loogaga hadlo suuqana sida erayadana meeshooda ayaan ku dayi doonaa oo aan qaabkooda ayaan u baran doonaa. Ka gudub waxaan ku bilaabaynaa waa maxay Forex. Markaad suuqan soo gelaysid waxaad u baahan tahay inaad ogaatid Forex maxay tahay. Forex waxaa laga soo gaabiyey magaca Foreign Exchange ayaa laga soo gaabiyey oo waa suuqa kala sarrifka lacagaha qalaad. Wuxuu shaqeeyaa 24 saac 5 maalin ee shaqada. Sabtida iyo Axadda suuqa waa uu xiran yahay oo ma shaqeeyo. Wuxuu shaqeeyaa 5 maalmood 24 saac 5 maalin ee shaqada ayuu shaqeeyaa. Weekendiga Sabtida iyo Axaddana suuqa ma shaqeeyo ee wuu xiran yahay. Yaa ku jira suuqan oo ka ganacsada. Suuqan waxaa ku jira dowladihii caalamka, waxaa ku jira maalqabeennadii, bangiyadii. Suuqan waxaa ku jira 1 dowladihii caalamka, 2 bangiyada, shirkadihii ayaa ku jiro, maalqabeennadii ayaa ku jiro iyo jeebyaraha oo annaga ah ayaa ku jirno suuqan oo faqiir iyo taajir uma kala socno, dadku way ku wada jiraan suuqan. Taana waa in aad concept guud ka qaadatid. Si aan ugu soo biiro suuqan maxaa lagaga baahan yahay. Waa muhiim suuqan markii aad ku soo biiraysid oo aad rabtid in aad suuqan barashadiisa bilowdid. 1 waa inaad haysatid internet, 2 waa inaad haysatid mobile oo smartphone, 3 waa inaad haysatid computer. Computerka dib waa ka gadan kartaa ama dib waa ka raadin kartaa, laakiin waxa ugu muhiimsan ee ah 1 inaad gacanta ku haysid waa internetka iyo smartphone. Ka gudub sideen u bartaa cilmiga Forex. Cilmiga Forex waa cilmi aad iyo aad u qoto dheer. Wuxuu u baahan yahay dadaal iyo waqti fara badan. Marka koowaad waa inaad dadaalkii iyo waqtigiiba la imaatid, naftaada aad maalgelisid oo cilmigii aad barato kadibna si xor ah aad uga shaqaysato. Waxaan rabaa inaan barto Forex lacagna ma haysto. Waa sababta aan u daahfurayo bartan YouTube. Dhalinyaro badan ayaa igu xiran oo aan wax baraa oo waliba ku soo wareeray iskuulaad lacag looga qaadan jiray oo iskuulaad Soomaalida dhalinyarada inaan dad u gafo ama aan hadallo dad kaleeto ay dhibsan inaan ka hadlo ma doonayo, laakiin waxyaabaha dhibaatada keenay ayaa ah cilmigii Forex ayaan aqaanaa, waan ku barayaa, website hebel ayaan samaystay, igu soo biir, kadibna meeshii wax aanan ahayn oo aadan ka filaynin aad ugu tagto lacagta markii aad bixiso kadib. Runtii qof trade ka sameeyo lacagna in uu Soomaalida oo walaalahayna oo ardada in uu lacag ka raadiyo yar waa aad iyo aad ayay u adag tahay. Qof trade-kii lacag ka samayn karaba in uu dad kala hunguriyeeyo jeebkooda waa wax aad u adag. Marka Soomaalida walaalahaya oo igu xiran oo haddeertaanba aan wax baro Telegram-ka qolalka Telegram-ka ku jiro dhammaantood halkaan u soo wareejin doonaa oo halkaan ay wax ka daalacan doonaan. Zoom toosana waan qaban doonaa, linkiga Telegram-kana halkaan waan soo dhigi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Cashiradana
asaasiyaadka ilaa iyo dhammaadka halkan waan soo gelin doonaa. wax lacaga waan idinka doonaya ma jirto. haddii aad doonaysid in aad baratana forex keliya bartaan youtube daalaco, telegramkana ardada ku jirto ka mid noqo. waan kuu fududaynayaa dhibaatada iyo maxay ahayd jaabyarida ardada haysato soomaaliyeed waa dareemi karaa. gabdha iyo wiilalba aad iyo aad ayaan idin soo dhaweynayaa. waa inoo muuqaalka xiga iyo aan halkeena kasii wada